السلام عليكم أصحابتي إذا قيمها بدن كسو دوادا يوتيوب channel ka إسماعيل عبد الله Soomaaliya maanta waxay wajahaysaa mid kamid ah marxaladihii ugu xasaasisan ee siyaasadeed sanadihii ugu dambeeyay dastuur cusub oo si rasmi ah loo dhaqangeliyay xilliwaano lagu qasbayo inay kala doortaan kursi baarlamaanka ama xilka wasiirnimo mucaarad awaabul xoogan wada iyo dood culus oo ka taagan nooca doorasho ee dalka gali doono magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo sii kordhaya halka madaxda siyaasadda odayaasha dhaqanka iyo bulshada inteeda kale ay isweydiinayaan su'aal muhiim ah Soomaaliya ma socota xasilooni mise waxay galaysaa qalalaas cusub warbixintan waxaan si qoto dheer u eegaynaa waxa uu yahay dastuur cusub cidda uu saameeyay sababta mucaaradku u hadlayo badbaado qaran iyo halka ay u dambeyn karto muranka doorashooyinka dalka dastuurka cusub oo si rasmi ah u dhaqan galay guddiga madaxa banaan ee dastuurka Soomaaliya ayaa shaaciyay in haatan uu si rasmi ah u dhaqan galay dastuurka cusub ee dalka go'aankan wuxuu si toos ah u saameynayaa qaab dhismeedka dawladda gaar ahaan xubnaha hadda isku haya laba xil oo kala ah wasiirnimo iyo xildhibaannimo dastuurka cusub ayaa si cad u mamnuucaya in hal qof uu mar wada noqdo wasiir iyo xildhibaan taasi waxay ka dhigan tahay in wasiiro badan oo hadda xukuumadda ku jira ay qasab ku noqon doonto inay kala doortaan inay haystaan kursiga baarlamaanka ama inay sii joogaan golaha wasiirada tani waa tallaabo bedeli karta awood qaybsiga siyaasadda dalka maxay ka dhigan tahay tallaabadan sharci ahaan waxaa loo doonayaa in la kala saaro awoodda fulinta iyo tan sharci dejinta taasi macnaheedu baarlamaanka inuu madax banaan yeesho wasiiradu inay noqdaan gole shaqo fulin ah isla xisaabtan dawladda inuu xoogaysto laakiin dhinaca siyaasadda arrintan waxay abuuri kartaa jahwareer cusub sababtoo ah xildhibaano badan ayaa wasiiro ah kuwaas oo leh saameyn siyaasadeed iyo taageero beeleed haddii ay baneeyaan kuraasta baarlamaanka waxaa dhici kara in kuraas cusub la buuxiyo taasoo keeni karta isbedel cusub guddiga dastuurka wuxuu sheegay in tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa dastuur cusub ay noqon doonto waxba kama jiraan sidoo kale guddiga ayaa sheegay inuu diyaarin doono qariidad cad oo ku saabsan kala guurka habdhaqan gelinta dastuurka qorshe wacyigelinta oo shacabka loo gaarsiinayo taasi waxay muujinaysaa in dawladda la gelinayo marxalad sharciyeed cusub dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ayaa Muqdisho kulan xasaasi ah la yeeshay odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye kulankaas kadib waxaa lagu dhawaaqay in dalku u baahan yahay badbaado qaran ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in odayaasha la wadaagaya xaaladda adag ee dalka iyo hubinta la'aanta jirta waxaa la isla gartay in Soomaaliya u baahan tahay midnimo siyaasadeed wada tashi qaran in bulshada oo dhan ka qayb qaadato xalinta xaaladda ereyga badbaado qaran wuxuu xambaarsan yahay fariin culus oo muujinaysa in mucaaradku aaminsan yahay in dalka uu galay marxalad khatar ah khilaafka ugu weyn ee hadda jira waa nooca doorashada ee dalka gali doono waxaa yaala laba aragtiyood doorasho dadban iyo doorasho qof iyo cod ah doorashada dadban taas oo ay door weyn ku leeyihiin madaxda dawlad goboleedyada doorashada qof iyo codka taas oo qof walba codkiisa si toos ah u dhiibanayo dawladda federaalka waxay riixaysaa nidaam qof iyo cod ah waxay ku doodaysaa in tani ay tahay wadada ugu dhow ee dimuqraadiyadda Soomaaliya lagu gaari karo laakiin mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaar waxay leeyihiin weli diyaar looma aha sharci buuxo ma haysto heshiis siyaasadeed laguma wada jiro golaha mustaqbalka Soomaaliyeed maxay yiraahdeen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ah dalada ugu weyn mucaaradka ayaa si adag uga hor yimid laba nooc oo doorasho waxay diideen midda koowaad doorasho ay maamulayaan madaxda dawlad goboleedyada midda labaad doorasho ay dawladda federaalka kaligeed gacanta ku hayso goluhu wuxuu sheegay in labadaas wada midna aan loo dhameyn heshiis siyaasadeed waxay dalbanayaan hanaan dhexdhexaad ah oo la isla ogol yahay haddii heshiis degdeg ah la waayo waxaa dhici kara dib u dhac doorasho firaaq dastuuri ah xiisad siyaasadeed kala shaki dawladeed muran amni sidoo kale waqti harsan
harsan ayaa aad u yar iyadoo la filayo in doorashooyinka dhacayaan bilaa soo socda. su-aasha ugu weyn maanta waxay tahay dastuurka cusub ma noqon doonaa jid xal lagu gaaro mise wuxuu sii horin doonaa muranka siyaasadeed. doorashada qof iyo cod waa riyo weyn oo shacabka Soomaaliyeed muddo sugayeen, laakiin haddii aan loo marin heshiis siyaasadeed waxay keeni kartaa muran cusub. sidoo kale haddii dib loogu laabto doorashada dadban waxaa jira cabasho hore, musuq saami qaybsi iyo awood urursi. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay meel kala guur taariikhi ah. dastuur cusub ayaa dhaqan galaya, siyaasiyiin mucaarad ayaa abaabulaya badbaado qaran, dowladda waxay riixaysaa doorasho qof iyo cod ah, halka shacabka ay sugayaan xasilooni iyo hoggaan mideeya dalka. waxaa maalmaha soo socda dhaca waxay go'aamin karaan mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya sanadaha soo socda. ma la heli doonaa heshiis mise khilaafka ayaa sii fidi doona? adiga maxay kula tahay Soomaaliya doorasho noocee ah ayay u baahan tahay maanta?